soo celinta bilicda ee degmadaasi waxaanay dib u bilaabeen ka shaqaynta bilicda magaalada iyo horumarinta wadooyinka halbowlaha u ah iyaga oo wadooyinka ku beeray dhir sidoo kalena raaciyay leedhka indhaha dadka soo jiita qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku nool magaaladaasi ayaa soo dhaweeyay waxqabadka golaha deegaanku ka wadaan magaalada Gabiley kuna dhiirigeliyay inay halkaasi ka sii wadaan. bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Maxamed Axmed Maxamed waxaana ka mid ah dhalinyarada magaalada Gabiley waxaan ka marqaati kacayaa horumarka iyo waxqabadka maayarka ayaa ka marqaati kacayaa wadiga arkayo magaalada aad bay isku bedeshay labada sano u dambeeyay maayarku haysto aad iyo aad bay isku bedeshay ma sha Allah wadada afartaxaada oo maanta aanan odhan karin magaalo kale in la qabta aanan odhan karin caasimadana Allah ka yeelay wadiga arkayo ma sha Allah walaayadaasi aad iyo aad ban horumarkan soo dhaweynaa maayarka gobolka Maxamed Amiir Umar Cabdo nin ayaro aad u daayar waxaan oran lahaa halka maanta aad ku wado magaalada kuwad baan oran lahaa wadiga arkayo soolarada biitooyada iyo timirtaasi magaaladuna lama qabaan alle hal magaalo ayaan soo raacday ayaan leeyahay magaalada Saaxil la yiraahdo oo isna nigaasi nin horumarka laga dayan karo uu yahay marka walaadaasi horumar aad iyo aad u wanaagsan ayuu magaalo iyo gobolku marayaa maayarkana waxaanu cod dheer iyo cod gaabanba kaga codsanaa inuu halka ku sii wado horumarka u gaari imikada kula hadlayo bajaaj dheer baan wataan oo waxaan ay taksiile bajaajta ku shaqaysta imikada 3,000 shilin cashuur ayaa laga qaaday cashuurtii la naga ururinayna waxqabadkooga wanaga hayna maanta wanaga hayna waxaana kamid ah wadada quruxda badan ee tan iyo booq meesha la yiraahdo waa dhowr kiiloomitir marka cashuurtii runtii dib baa loogu celiyay oo wala looga faa'iideeyay cashuurtii maanta waxaan ka marxaati kacnaa in cashuurtii la nooga faa'iideeyay wixii aanu bixsanna waxna noogu qabtay waxaana leeyahay halka kaga haya jaamacadana bismillaahir rahmaanir rahiim jaamacadana waxaan ka shaqeeyaa wadadan weyn ee sadarka Gabiley marta dariiqa ciidda iyo dhagax loo soo gurtaan neesta soo gurta marka wallahi wada si wanaagsan oo socota gudoomiyaha Gabiley midnimada Gabiley salaamna walaad deegaanka wallahi gacmooda jir si wanaagsan oo socota shaqaas iyo bilic iyo sabiyo bedes iyo highway oo balaadhay oo si wanaagsan loo maray xilligan aan goobta tagay waxaa ka soconaysa hawsha dayactirka iyo dib u habaynta jidka afartaxaada ee dhexmara magaalada Gabiley oo dib u dhiskiisa ay ku guuleysteen golaha deegaanka degmada Gabiley injineerka dawladda hoose ee degmada Gabiley injineer Ibrahim Umar Xaaji Saciid ayaa 5TV faahfaahin ka siiyay muddada ay ku qaadatay hawshan ay gacanta ku hayaan ee dhismaha jidka afartaxaada ee dhexmara magaalada Gabiley boqor Axmed sallallahu alayhi wasallam halkan maanta aan taaganahay ee shaqadu ka socoto wadadii afartaxaad ama main roadkii magaalada Gabiley ee isku xidhay magaalooyinka Hargeysa iyo Gabiley dariiqan waxaan ugu talagalnay inuu saambal u ahaado dhammaan degmooyinka wadanka ka jira oo bilicda iyo quruxda iyo ballaarinta lagu sameeyay in fara badan bulshadu aanu doonayna inaanu u soo bandhigno dariiqana berigii hore wuxuu ahaa laba haado kaliya imika waxaanu ka dhignay 4 liin baan ka dhignay ama farhad baan ka dhignay gawaarida tagay marka magaalada Wajaale ee alaabta ka soo qaadaya Berbera waxay u sahlaysaa inay si yar oo fudud habeen iyo maalinba ay si fudud u mari karaan oo aan wax de traffic jam u ka jira aanu jirin marka in fara badan marka dawladda hoose iyo golaha deegaanka magaalada Gabiley aad baan ugu hambalyeynaa wanaagga iyo horumarka ay markasta iyo xilli kastaba ay la jecel yihiin magaaladooda marka waxaan leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha idinku asturo xilkaad umada u qaadeen dadaalkana halka ka sii wada annaga injineer ahaan kulleeyda wixii bilicay magaalada laga qabanayo waa waajibkayga noo saaran marka magaalada marka aanu dawaa hawshan u hayno wadanka weey Ilaahay waxaan ka bareenaa inuu noo fududeeyo afaadkii dhibaatada adduunka ka jira imika halkan waxaan ku sameeynaa marmarkii baan u dhigaynaa dariiqa timirtii baan ku beeray leedkii habeenday night baan ku sameeynaa kharash ku baxayna aad buu farabaday wallahi wax fudud maaha marka 2 kiiloomitir aad istiraahdo extension ku samee oo drainage-keedu u samee oo dhirtii ku beeraa istiraahdo oo aad tiraahdo marka lights ku samee wax fudud maaha hawlaadu gaar imika 6 bilood buu dariiqani socdaa 6 mar carra la dhigayo marka asfalkii la dhigayo mar leedkii lagu xidhayo maanta timirtii iyo marka tailinka ama marmarkii uu socdo marka Ilaahay waxaan ka bareenaa noo fududeeyo si yar fudud marka hawsha Ilaahay subxaanahu wa ta'aala noogu fududeeyo Ilaahay ka